السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaasheeda qiimaha iyo qaayalo meel kasta joogtaan soo dhawaada shabakada wararka ee Sayla 24 waxaan idiin haynaa faallo gaar ah aan ku eegayno dooxyada Somaliland biyaha ka soo dhaca ama ku filan yihiin laakiin maxaase loo xidhi waayay yaa hortaagan in la xidho sababta loo xidhi waayay ma aqoon la'aan ba mise waa dhaqaale la'aan haddii dhaqaalaha la helo ma la xidhi karaa haddii la xidho maxaa soo baxaya oo nolosha dadka iska bedelaya dooxani waa dooxa dacar buruq ku yaalla iminkana bridge-ka weyn la saaray ay dhistay dowladda imaaraadku dooxyada sidaas u soo rogmada waxay ku yaallaan ilaa Sayla ilaa Ceergaabo dooxyo sidaa u rogmanaya biyahaasina badda unbay galaan sababtay badda u gelayaan waxa weeye ilaa intii dadku dhashay badda unbay geliyeen lama waayin aqoontii lagu qaban lahaa biyahan dhaqaalihii lagu qaban lahaana lama waayin laakiin sawirka halkan idinka muuqda ama baaldigan daldaloola ee biyuhu ka baxayaan ayuu dhaqaalihii Somaliland ka baxayaa 2 bilyan oo dollar ayaa sanadkii soo gala 1 bilyan oo wax yar la ama 800 oo milyan oo dollar waxay ku baxaan qaad inta kalena waxay ku baxaan inta yar ee dowladdu ay meelaha ku wareegto labada qorshe haddii qorshe loo helo Somaliland waxbay bedeli kartaa halkan waa laamiga dambe la saaray iyo bridge-ka la saaray dacar buruq 90 milyan oo kaliya ku baxay wadada inta dhererkeedu leeyahay ilaa Wajaale ilaa Berbera 1 year gudaheed ama hal sanadood gudahoodna 800 oo milyan ayaa qaad lagu cunaa dadka loo geeyaa fooqyo ka dhistaan dadka kalena way gaajoodaan dooxan kale isaguna dumaya waa dooxa gobolka Togdheer isaguna biyaha tirada leeg ama mowjadaas leeg ayaa maraya halkan waxa idinka muuqata magaaladii Hargeysa oo 30 sanadood magaalo kale u eg haddaba Hargeysa maxay sidan ugu ekoonaatay dooxyadiina weli 100 sanadood iyo dhowr boqol oo sanadood weli siday ahaayeen ay ugu eegyihiin oo biyaha loo qaban kari waayay lacagta Hargeysa sidaa loogu dhisay Somaliland way taallaa ee maxaa loo qabsan waayay dooxa iyo biyahaba laba jawaabood oo kaliya ayuunbaa soo bixi kara lacagta musuqmaasuqa gasha ee dadka iyo dalkaba laga musuqmaasuqo haddii musuqmaasuqa lala dagaalamo wax kasta waa la qaban karaa lacagta ganacsatadu ay jeebabka ku hayso ay xamaalinta ku yihiin wuxuun ku soo qaadayaan haddii qorshe loo helo biyaha waa la qaban karaa haddii biyaha la qabtana waxba lagu beeran karaa xoolihiina way dhaqmayaan oo noloshii dadka ayaa isbedelaysa oo cunto iyo calaf baa la helayaa ganacsatada Somaliland haddii 10% ama 20% dhaqaalaha ay soo xamaalaan ee China iyo Europe iyo caalamka ka soo xamaalaan ay geliyaan dalka iyaga laftooda dooxya la kala siisiyo la yiraahdo qof kastoo dooxa xiro dhaqaalana ka samay nolosha dadku way isbedeli kartaa wax badanna waa la gaari karaa laakiin su'aashu waxay tahay suuragal ma tahay aragtidooda inay bedelaan ganacsatada Somaliland ee u idmanuun inay iyaguna dowladda kontaraya ka qaataan ama inta yar ee hayaanuun ay kolba dadka macaashiraadisuun kaga raadiyaan kalluunkii baa badda yaalla oo nolol laga samayn karaa biyihii baa kuwana oo nolol laga samayn karaa anigu waxaan u arkaa fakhri ka jira dal tijaara dad tijaara oo fakhri maalin kasta u yeedhanaya aqoontu waa muhiim noloshana aqoonta u furaa وقت المال لدهو
kuma habboone waa tilmaan la daaho kuma habboone adoo degan u fiirso adoo degan u fiirso jeedada